ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa laga waayay ku sugnaada hoygiina si aad uga badbaadaan cudurkan halista badan ee dunida oo idil ku faafay isla markaasna waxyeeladiisu ay tahay mid aad u baahsan. Waxay isugu yimaadeen goobo maqaaxiyo kafeeyo iyo goobo lagu sheekaysto. Ha yeeshee dowladda Mareykanka ayaa tallaabo ka qaaday oo goobahaasi dhigtay dhagxaan aad u waaweyn si aan la isugu imaanin mar dambe, maadaama ay dileen guryihiina ku sugnaada si aad uga badbaadaan halista cudurkan oo ah mid aad ku faafaya. Dhammaan shuruucda waxa ay qaateen bulshada qeybaheeda kala duwan iyo muwaadiniinta dalkaasi, laakiin Soomaalida ayaa ah kuwa aad u madax adag oo ka biyo diiday. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa qoraal Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Khaliif oo ku sugan isla Mareykanka ayaa ka hadlaya ku soo dhawaada. mararka qaarkood sharciyada ay dadka laftirkoodu ay dhigteen in yaroo dhagaadkaana. haddaba sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa aragtida ee bulshada kale ee ka qabto Soomaalida? Shaqadaasu dhowr waji bay yeelan kartaa, laakiinse waxa ay mid ka muuqan kartaa inay dadku ay ku adag tahay luqada iyo dabeecadaha dadka kan ay la degan yihiin inanay xataa dhaga u dhigaynina dhinac bay ka siin kartaa. waxay kaloo dhinac ka siin kartaa dadka kan doonaya ku soo yaacaya maxay ahayd ama khasbaya meheradihii la xidhayay. waxay u badan yihiin dadka aynu nidhaahno conservativeska ama dadka aan actually Soomaalida iyo minority waxba u ogolayn. marka waxaad moodaa Soomaalidu hadday caynkaa ku dhaqaaqdo inay iyakii u ololeynayaan. dhanka kale qaar ka mid ah suuqyada Soomaalida ugu weyn ayaa shalay la furay walow markii dambe albaabada la isugu dhuftay. Sheekh Tawakal oo ka mid ah culimada Soomaalida isla markaana ka tirsan guddi dhawaan loo xirsaaray wacyigelinta bulshada ayaa ka jawaabaya sababta ay qaar ka mid ah Soomaalida Minnesota ay u qaadan laayihiin awaamirta maamulka gobolka Minnesota. runtii waxa weeye community-gu meelo badan waa laga wacyigeliyaa. guddigiina waan nahay annaga ilaa hadda meel la furay oo si rasmi ah moolo la furayna ma jiro. Starbucks-ka waxyaabaha dhibaatada ka imaanayana in aynu ka waanino oo dadku ay ka istaagaan 24ka banaankiisa ay istaagayaan, meelaha Starbucks-yada ay istaagayaan. waxaas oo dhan waa violation weeye in maaragtay ganaaxaas iyo dadku wali waxa lagala xishoonaya tigidna in la siiyo ama in la xiro. marka dadkeena waxaan faraynaa arrinta wacyigelinta oo guryaha jooga ah ama in la kala fogaado 6 feet la kala jiro. arrimahaas oo dhan wali sharciga sidii u socdaa. dawladdu wayna soo wargelinaysaa dadka in wax loo sheego. arrimaha dadkeena waxaan marka faraynaa arrimahaas inay qaataan. waad ogtihiin oo waxa weeye cudurku wuu socdaa, xawli buu u socdaa, dad baa u dhimanaya. marka arrimahan in la isu imaanayo oo meelaha la buubuuxinayo waxaan faraynaa dadku inay ka istaagaan. mool la furayna ma jiro. Starbucks